السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. walaalaha Soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan Allah idin dhowro. Ilaahay ha idin dhowro dunya aakhiro. Idinkii ehelkiina awlaadiinuba culayska Allah idinka qaado. albaabada khayrka Allah idin furo. dhulkeeni hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo. amnigiisa amaankiisana Allah sugo. waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee dhaxalkii rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wa sallam. waa xalaqadiisii 11 sidaan filayo caawa xalay waxaan ka soo hadalnay waa salaada iyo faa'iidadeeda adduunka. caawana waxay madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isdul taagaysaa qofka ka taga salaada iyo cuquubada ku dhacaysa adduun iyo aakhiro. maxaa yeelay sidaan xalay idiin soo sheegay su-aaluhu waxay u badan yihiin salaada subax. waxaan ka tagnaa salaada subax, uma soo kici karna salaada subax, sideen yeelaa salaada subax? rasuulkeenuna salawaatullahi wasalaamuhu calayhi waa ka uu dhahayo salaadaha ideylkood marka la isku daro salaada ilaahay wuxuu iga dhigay kuwa qalbigaygu ay ku qabowsadaan. bimacnaa annaga qalbiyadeenu salaadaha kuma qabowsadaan, hurdada ayaanu ku qabowsanaa. maxaa yeelay mar haddii qalbigaagu wuxuu ku qabowsanayo salaada laga dhigo ma jiifi kartid. caaisha umuna caaisha iyo aswaajtii kale umahaat lmu'miniin ridwaan ullahi calayhim markuu dhex joogo xabiibkeenu salawatullahi wasalaamu caleyh uu la shaqaynayo ama uu u sheekaynayo eeg haddii uu maqlo adin caaisha waxay leedahay radia allahu canha wa ardaaha kaanamaa inagoonan is aqoonin. maxaa yeelay waxaa u yeeraya cid ka wanaagsan umuhaadkan oo dhan. noogu raaxee bilaal salaada noogu raaxee. awel hadduu qalbigiisu sheekadan iyo farxaddan reerka awlaadan haddii uu ku qabowsanayay reerkiisa uu ku dhex jiro waxaa imanayo loogu yeerayaa wax kasii wanaag badan oo qalbigu ku raaxaysanayo. markaasuu u degdegi jiray. marka ay salaadu marka ay hurdadu ku dhaafiso salaad oo aad u kici weydo bimacnaa eeg labaad isbarbar dhigaysaa addoonkii alla o addoontii allah. salaada ma hurdadan sii wataa kubeertadan hoosta kasii galaa ma ise sii kaduudaa mise waan kacaa. markaasaa ibliisku wuxuu ku rajaxayaa in aad isdabowshid oo aad jiiftid. taasaad marka adiguna ku qanacdaa. bimacnaa taasow qalbigaagu ku qabowsanaya waana dembi iska ilaali. eeg dadkii waa wanaagsanaa ee qalbiyadoodu ku qabowsanayeen salaada, ku raaxaysanayeen, kaalmaysanayay salaada, dad waa wanaagsan. markii laga soo sheekeeyey ilaahay ay muxuu raaciyey? waa ku u dhahayo fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata waاtabacuu shahawaat fasawfa yalqawna gaya. waxaa kuwaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey oo nooloo jooga yaa la tilmaamaya waa anigii adiga. dadkan salaada dayacayaa la tilmaamaya. ka salaada subax ka cabaadayaa la dayacayaa. kan cishaha garab mara ee masaajidkaa la sheegayaa. fakhalafa min bacdihim waxaa kuwaa ka haray oo ka dambeeyey khalfun dhalbaas. dhalbaas ma aha mu'miniin, waa cadow ilaahay. dhalbaaskan caduw allah waa dhalbaas, ilmo shayaadiin weeyaan. dhalbaas maxay ku noqdeen? adaacu salaata, salaadii bay dayaceen, cishihii bay dayaceen, waxay dayaceen subixii bay dayaceen. ma oga faa'iidadooda. adaacu salaa watabacuu shahawaah. waa kana waxay ku dayaceen shahawaad ayay ku dayaceen. waxay raaceen shahawaadki. eeg marka lagu leeyahay asalaatu khayru min annawm, xaya cala asalaax, xaya cala alfalaax. salaadu way ka qiimi badan tahay hurdada. u kaalaya liibaan, u kaalaya wanaag iyo salaax, u kaalaya marka la leeyahay. markaad adiguna kubeertada aad sii huwatid, isa sii kaduudid, sariirtii aad sii cusilaysid, maxaad raacday? shahawada shahawo waxaa la yidhaahdaa nafsadu waxay jeceshahay oo ay ku qanacdo ilaahayna aan raaligelinaynin, ilaahay ka caraysiinaya. watabacuu shahawaa kaalay baa lagu yiri mayaa tiriyo tii shahwadaadii baad raacday.
musalsalkiiba daawanaysaa xaya cala asalaa ayaa la leeyahay waxaad leedahay balkan aan dhamaysto salaadu tegi mayse musalsalkan waa dhamaanayaay xaya cala asalaa cayaarahii waa dhamaanayaan koobkii aan hortay la qaadan goolkii aan hortay dhalan championshipkii baad maaragtay daawanaysaa kan wuu ku dhaafayaa ya salaadu ku dhaafi mayso eeg watabacu shahawaa waxa laisdaba dhigaya eeg addoonkii allow adaacu salaata salaadii qiimiga badneed hadiidii samada looga keenay xiriirkii alle acmaashii ugu ilaahay ugu jeclaa ayuu dayacayaa cimaad uddiin ayuu dayacayaa watabacu shahawaat shahawaadkii shahawaadna waa taqaanaa waa waxyaabaha nafsadu jeceshahay eeg cadowga eeg aad caawinaysid adduun ayaad caawinaysaa waxaad caawinaysaa waa ibliis waxaad caawinay waa shayaadiin waxaad caawinaysid waa hawo waa nafsad intuba xumi bay ku farayaan sow ma ogid ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwa soo lama dhin ina الnafsa laamaaratn bisuu xumiday fartaa iska ilaali hawada walaa tatabic اlhawى fayudilaka can sabiili الlah ha raacin baa lagu yiri haye kulligood nafsadii hawadii ibliiskii adduunyadana maxaa lagu yihi falaa taguranakum alxayaat اdunya yaanay idin kedinin dhaldhalaalkan adduunka xaabadan intan oo dhan waa cadowgaaga mana arkaysid eeg inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum eeg wuxuu idinka arkaa ibliis iyo dhashiisa ibliis iyo wuxuu ku adeegto ku dar adduunyadii ku dar nafsadii ku dar hawadii waxay idinka arkayaan meel idinku idinka arkin war kuwan iska ilaaliya cadow ayaa mirsaad kugu jira mar walba markaasaa lagu siiyey difaacii baa ilaahay kuu soo dejiyey hadiyadan aynu ka hadlaynay salaada ee aynu dayacnay waa difaac sow ma ogid 4 shay ayaa difaac uu inooga yahay iyo waxa ka badan oo dhan shayaaiin linsi shayaaiin ljin waxa hawlaha nagu cuslaaday baahidan faraha badan maxaynu kaga kaalmaysanaynaa wasalaa asalaa wastaciinuu bisabri wasalaa waata aynu dayacnay dhalbaas baa ka dambeeya laleeyahay dadkaa salaada kaalmaysan jiray dadkaa waa wanaagsanaa saalixiinta ahaa waxaa ka dambeeyey waa dhalbaas dayacay salaadiyo hawada raacay shayaadiin raacay adduunyo raacay nafsadi raacay watabacu shahawaa xaggay galayaan fasawfa yalqawna gaya adduunye iyo hawe ibliis iyo qofkii raacaa intuu galayaa gayi ayuu galayaa waa waadi fi jahannam ilahay aynaga koriyo walaalayaal salaada oo laga tagaa fawaylun lilmusaliin oo laga tagaa iskaba dhaaf salaad oo laga tagee mid kamid a haddii aad ka tagtid waa mid kamid a haddii aad ka tagtid ama aad dayacdid waktigeedii aad dayacdid ama arkaanteedii iyo nuxurkeedii khushuucdeedii khuduucdeedii aad dayacdid eeg waxa ilaahay uu ka hadlaya waa dad tukanaya ma aha dad kaba tegay salaadii taariku salaada dad tukanayo ilaahay ka hadlaya oo uu leeyahay fawaylun lilmusaliin wayl waa waadi fi jahannam ka waran 7 cadaab oo dhan 7 cadaab ayaa wuxuu waadigan ayay ka magan galaan ilaahow kan naga ilaali kan naga kori dabba wuxuu ilaahay ka magan galayaa dabka kale waa waadi fi jahannam waadiga waxaa loogu talagalay lilmusaliin dad tukanayaa loogu talagalay aladiina hum can salaatihim saahuun kuwa salaadooda sahwinayo halmaamaya waktigeedii bay ilaawayaan eeg adaacu salaata watabacu shahawaat aladiina hum can salaatihim saahuun waxa waaye hurdadii bay ku sahwinayaan waa maroo horta hore waktigeedii bay dayacayaan hadhow baad tukan doontaa duhurku ma dhowa wakti dheer buu leeyahay casarku iman maayo 3 saac 4 saac baa hortaada ah musalsalkan hadduu dhammaanayaa waa 10 daqiiqe dhegayso oo cayaaraha fiirso oo sheekadaada qofkan qaaliga ah bal maaragtay cadda kala dhamaysta tan haynoo dambeyse salaada ebidkeed baa la tukadaa ilaahay waa ghafuuru raxiim eeg saahuun aladiina hum can salaatihim saahuun ama
wuxuu dayacayaa salaadii waktigeedii buu ku tukanayaaye dee nuxurkeedii, khushuuceedii, khuduuceedii, arkaanteedii, tuma'niinadeedii, quubqac digaag biyo cabaysa, shimbir biyo cabaysa oo kale weeyaan. soo ma garana aladiina hum can salaatihim saahun. ka waran marka nin tukada oo un dayacay salaadii, haddii la yiri weyl iyo kayi ayay galayaan. ibn cabaas wuxuu leeyay labadan aayadoodba dad tukanayay kusoo degeen oo salaadoodii dayacaya, ama waktigeedii ama khushuuceedii. maxaad umalaysaa kii aanan tukanaynin tutali? laa ilaha ila allah. ya waryaynaan dayacin salaada. salaada cuquubadeeda eeg walaalayaal. aakhiro waxa ugu horeeya ee cadaabku qofka uu ku gelayo waa intee? waa maxay? waa salaada. maa salakakum fi saqar. dadkii mu'miniinta ahaa ayaa asxaabtoodii kale adduunka dee is yaqaaneen oo kusii socda saqara sii gelaya markay arkaan ay leeyihiin maa salakakum fi saqar. war saqara maxaa idin geliyey? saqaro maxaa idin geliyey? eeg waa la degayaa, waa fi darki alasfali min annaar. waa hoos baa loo degayaa, jannadana waa la fuulaya, waa darajaad. kuwaanoo kore fuulaya ayaa hoos waxay ka arkeen kuwaanoo sii hoobanaya o sii shalwanaya. maa salakakum fi saqar. maxay leeyihiin? qaaluu lam naku min almusaliin ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. ma aynaan tukan jirin. ma aynaan tukan jirin, bimacnaa salaadoo dhan ma tukan jirin, misena salaada waan daahin jirnay oo waktigeedaan dhaafin jirnay. duhurka waxaan tukanaynaa casarkii oo wadaadka addimi rabo ayaan tukanaynaa. maqribka maqribkii oo la addimaya ayaan casar tukanaynaa. salaad baanu ka tegaynaa ama rukuucdeedii khushuuceedii. salaadaha ma aanan ilaalin jirin, ma aanan xifdin jirin. ma salakakum fi saqar qaluu lam naku min almusaliin. soo ma aragtid haddii weyl loogu talagalay dad tukanaya, hayi ay galayaan dad tukanaya, saqara ay galayaan dadka tukanaya, intaasoo dhan war ma adkaysan kartaa? iska ilaali salaada yaanay kaa tegin. salaada yaanay marnaba kaa tegin. taada kale eeg, waxaad leedahay jannaan doonayaa. waxaad ku andacoonaysaa inaad tahay ummatu muxamed qof kamid ah. laakiin waxaan kuu sheegayaa kaaga aan tukanayninw kamid maahid ummadda nabi maxamed. anigana ma aanan dhihin. waxaa dhahaya waa xabiibkaaga sala allahu alayhi wasalam. wuu yaqaanaa ummadiisa. wuu yaqaanaa. maalin walbana camalka ummadiisa loo bandhigaa maalinka isniinta iyo maalinka khamiista ah. salaad daridaada aad ka tagtay, salaada aad dayacday waa loo bandhigayaa. la soco, wuu la socdaa. xabiibku qabrigiisuu ku nool yahay sala allahu alayhi wasalam. jirkiisuna waa saliim. caradu ma cunto ambiyada ilaahay. axaadiis saxiixa ayaa inoo sheegaya in acmaasheena loo bandhigo xabiibka sala allahu alayhi wasalam. malaa'ig baa qaadaysa oo u geynaysa. iska ilaali maalinka qiyaame. eeg wuu garanayaa dadka ilaa qiyaami saaca. ummadiisa ilaa ummad kale dhalan mayso, waa ummadiisa intaasoo dhan. isagaa ugu dad badan. markaasaa maalinka qiyaame see buu ku garan in isagaa dhahaya ku salli xabiibkaaga sala alla alay slam. wuxuu dhahayaa ina ummatii yudcawna yawma alqiyaamati guran muxajaliina min athari lwudu. ummadayda maalinka qiyaame waa garanayaa buu leeyahy, waa loo yeerayaa. yaa ummata muxamed aa la leeyahay, waa loo yeerayaa. see suu ku garanayaa? guran muxajaliin. guran eeg waa weji garaaran yihiin. wejiyadoo dhan baa cad. wejiyadii, dhegihii, madaxii, waa horaadkii oo dhan baa cad. muxajaliin garbihii iyo lugihii oo dhan baa cadcad. wa min athari lwudu. haddaadanba weysaysan jirin adiga oo aad salaada subax weysadii ka tagtay ama aad khiyaani jirtay, dee yaad khiyaanaysaa. waa nafsadaada. saad ugu andacoonaysaad u leedahay ummadaan ahay. ummadaan ahay. sheegasho ma aha diintan waa camal. ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat yudcawna ina ummatii yudcawna ywma alqiyaamati guran muxajaliin min athari lwudu.
marka maalinkaas caguhu waa kuma madow yihiin, gacmuhu waa ku madow yihiin, wejigu waa ku madow yahay. maxaa waay maalinkaas iftiin ma jiro. nuurka intaa laga qaataa. ha nuurka waa halkan. salaadu waa nuur, wallahi waa nuur. xabiibkaa dhahaya ku sali xabiibkaaga sal lla ly slam bashir ilmashaa'iina fi الظulami ila almasaajid binuuri tam ywma alqiyaama. dadka mugdiyada u socda masaajidada waa ceshihii iyo subxi, waa kuwa aad dayacday, waa kuwa ideelkeena aynu dayacnay. ha ee ibliiskuna dayacsiiyey. musalsalaadka iyo hurdada iyo laqwiga sheekada aynu ku dayacnay weeyaan. sariiraha korkooda aynu ku dayacnay. bashir ilmashaa'iina fi الظulami ila almasaajid. u bishaaree dadka mugdiyada u socda masaajidada ilaahay u bishaaree. waxaad ugu bishaaraysaa binuuri taama ywma alqiyaama. ha nuur buuxa. nuur buuxa macnihiisa waa maxay? waa iftiin bilow leh ilaa iyo wuxuu ka bilaabanayaa marka lasoo baxayo ayuu ku bilaabanayaa. qabriga barzakhu ku bilaabanaya, way la soo baxayaan, maxsharkay la gudbayaan ilaa jannadii oo ifaysaa ay galaan. ka munaafiqiinta laakiin waa go-ayaan. ha nuur yar inta la tuso waa intii ay iimaanka sheeganayeen, ha oo adduunyadooda ku ilaashanayeen. ha waa ku rumaynay ay dhahayaan rasuulka, mana aanay rumaynin ilaahay. adduunkooda iyo xoolahooda, dhiigooda, awlaadooda in loogu ilaaliyo noloshooday doonayaan. intii yareed ayaa loo bidhaaminayaa. dhaxda markuu marayaan ayuu go-ayaa, weliba siraadkuu ku go-ayaa. ma aha nuur taam ah, laakiin dadkan mu'miniinta ah iimaankoodu buuxo dhabta ah ugu bishaaree baa la yidhi nuur buuxa ilaa ay jannada ka galaan. allahu akbar. war salaadu waa nuur. salaadu waa nuur. haddaad doonaysid in noloshaada ilaahay nuuriyo tuko, oo salaadaha ilaali, oo jameecada ku ilaali, ha waysada ilaali. xataa wuxuu leeyahay abaa hureer oo xadiisku warinaya, wuxuu leeyahay dheereysta. qof walba intuu waysada dheeraysan karo ha dheeraysta. meel walbo waysadu gaadho ilaahay wuu ifinayaa. allahu akbar. ya war diinteenu waa iftiin. ha diintu waa iftiin, bal salaadu waa iftiin. wax walboo diinta dhexdhacaya, islaamka dhexdhacaya waa iftiin. xataa waa ka uu leeyahay xabiibkeena salawaatu llahi wasalaamu caleyh, cirada yar, timaha yar ee caddaada, adigoo muslim ah ku caddaadaa, maalinka qiyaamaha nuur buu kuu noqonaya. wax walba waa nuur. waxaasaynu ka qatannahay. war maxaynu gaalo uga baahannahay? ii sheeg. gaal iyo munaafiq maxaan uga baahannahay? ha maxaynu dulli u noqonay anagoo nicmadan haysana, nuurka adduunka anagoo haysana? maxaanu u noqonay gacanta liidata anagoo gacanta sarraysa ah ilaahay uu inaga yeelay? ha maxaynu gaal iyo gaal weeke aynu cizi Orobi America aynu cizi uga raadinaa, aynu sharaf uga raadinaa, ha aynu qiimihii magac uga raadinaa anagoo islaamku uuna qiimeeyey, islaamku uuna macneeyey, islaamka cizi iyo sharaf uu inoo yeelay. ha walilahi alcizza walirasuulih walilmu'miniina walakina almunaafiqiina laa yaclamuun. ha garan mayaan. ilaahay baa cizi leh, sharaf leh, qiimi leh iyo qadar leh, rasuul baa leh, mu'miniintaa leh. maxaynu ku yeelanay? waa islaamkan. islaamka markaynu dayacno, islaamka waxyaabaha ugu horeeya ugu waaweyna waa salaada weeyaan. markaynu dayacno yaa inoo yeeli karaayo? hadday maxaynu soo qaadanay habeenadii habeen hore maxaynu soo qaadanay? in yansurkum allah falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. ha eeg u gargaar ilaahay. haddaad u gargaartaan ilaahay, cid gaalib wallahi idinka noqon kartaa inaanay jirin abadan. ugu gargaar ilaahay salaadaa tukanaysid. ha salaadaa ugu gargaar, weliba ugu gargaar waktigeedo aad ku tukatid, ugu gargaar jameecado aad ku tukatid, ugu gargaar guryihiisoo aad timaadaan. ha halka nuurku kusoo degayo. ha imaada. ha ugu gargaar. markaad ugu gargaartid, ha falaa gaaliba lakum, wallahi inaanu jirin wax idinka qaalib noqonayo. xaaraan baan idinka qaalib noqon karin. ilaahay xalaal ayuu idin siinayaa. baarinimo ayuu ilaahay idinku gargaarayaa oo aad ku qaalib noqonaysaan. caasinimo marnaba idinkama qaalib noqonayso. farxad iyo sacaado ayaa ilaahay idinkugu gargaarayaa, soo ma garan, oo aad ku qaalib noqonaysaan. wallahi inaanay murug iyo welwel iyo hami iyo fikir iyo balaayo iyo xumaan marnaba aanay idinka qaalib noqonaynin.
ya in yansurkum allah falaa gaaliba lakum. laakiin markaad ka tagtaan qiyamkan, qiimigan, wanaagan, ya wa in yakdulkum, ilahay hadduu garabkiina ka baxo, garabkiina hadduu ilaahay ka baxo oo ibliis uu meeshii soo galo, faman da aladii yansurukum min bacdi, markaa kadib ilaahay markuu baxa kadib yaa idin gargaaraya. ma ibliis baa booskii ilahay idin geli karaayo? war isku mid ma aha. ma yaho ilaahay aynu u gargaarno, ilahay diintiisa aynu u gargaarno, si aynu ummadda muxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh u noqono, adduunkan aynu ugu noqono, aakhira aynu ugu noqono, aynu salaadaa u gargaarno, salaadaa aynu xoojino, marnaba yaynaan maqlin salaadaa laga tegay, salaad baa igu culus. munaafiqun bay salaad ku cuslaataa. munaafiqna waad garanaysaan meeshuu galaya, ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar. naaraha darakaadkaas ah ee hooseeya, midda ugu hooseysa ayaad gelaysaa. ilaahay inaga koriyo, kuwa salaada ilaaliya allah inaga yeelo. ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto, ilahay waxaan uga barya inuu taladeeda hal ka yeelo, ul iyo diirkeed ka yeelo, qalbi qof kaliya ka yeelo, inteeda xanuunsan allaha caafiyo, inteeda dhibka allah ka qaado, culeyska allah ka qaado, albaabada khayrka ee ma aragtaayay xiran ilaahay ha u furo ummadda soomaaliyeed. ilahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran xabisada allah ka soo daayo. hooyooyin badan baa ubad laga qaatay, ubadka ilaahay ha u soo celiyo. in baa lagu soo socdaayo, ilahay waxaan ka baryay inuu ilaahay ka difaaco, uu ka celiyo. inta caasiga ilaahay ha soo hanuuniyo, inta kala maqan waa la kala maqan yahay, ilaahay isu soo ururiyo. adduunkan ilaahay raalli ahaanshiisa haynugu nooleeyo. ilaahay nagama qaado adduunkan, nagama saaro. ilaahay nagama saaro adduunkan ilaa isagoo raalli naga ah maahane. haddaynu ka tagno janat lfirdows maca alxabiib, ilaahay haisugu kaageeyo. astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu. wasalaamu calaykum waraxmat allah.